calanka.com. qorshaha tigsiga ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ogtahay hadda xaaladda situation ka jira dalka inay abuurtay inuu ciidanku gobol noqdo gobol walba ciidankiisa uu ciidanka deegaankaas uu ku meeraysan yahay arrintaas muddo badan waxa looga fakiray marka in laga gudbo labaalkaas oo la habeeyo ciidan qaran ujeedada asaasiga marka ciidan isku dhafa laga leeyahay maxay tahay in la helo ciidan qaran oo leh hogaamin midaysan hoosna yimaado dawladda federaalka ah ujeedadaas waxa lagu gaari karaa dawladda dhexe iyo dawlad goboleedka oo isfaham buuxa ka gaara dhismaha ciidan qaran waxaan qorsheynay dhamaystir qorshahaas si loo gaaro loo fuliyo qorshahaas hadafkaas laba marxaladood oo kala duwan marxaladda ugu horeysa waxa weeye in taliska xoogga dalka Soomaaliya iyo wasaaradda gaashaandhiggu ay dhamaystiraan in ciidan walba gobolkaas jooga uu noqdo ciidan isku dhafan oo dadka gobolkaas jooga ay u dhan yihiin marxaladda labaadna waxa weeye in ciidankaas goboleedka ah uu isku bedelo ciidan heer qaran oo lagu daro goboladii kale marka marxaladaas wax yar baa ka dhiman inta guddigii loo xilsaaray isku dhafka ciidanka heer qaran ay dhamaystirayaan hawshooda hawlgal aad u ballaaran xoogga dalka adduunyada oo dhanna waxyaabaha la isku raacsan yahay oo aan lagu kala aragti duwanin waxaa ka mid ah dalina inaanu jiri karin ilaa uu leeyahay ciidan suga xorriyadiisa iyo amnigiisa iyo maxaan ku idhaha deganaanshihiisa intaba halkan taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuu soo maray marxalado kala duwan ayuu soo maray taliskan markii la dhisay waagaasi Afrika waa yareeday talisyo noocan ah dawladda qabahay aad iyo aad ayay u yaraayeen waliba technology-ga waagaas cidhidhi ahaa taliskan wuxuu ahaa talis technology aad iyo aad u sarreeyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed meel kastoo joogaan qaybahooda iyo madaxdooda iyo maxaan ku yiraahdaa taliska isku xirnaantiisa technology-ga la isticmaalayo berigaasi ma jirin dalal badan oo Afrikaan oo runtii oo isticmaali jiray technology-gaas ama beriga haystay calanka.com.